بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وروريا صوبا ملكستو واجوكتان داوديال كسو دوادا barnaamijka maxaa cusub wadahan oo kala aad uga barateen barteena barnaamijka saaka waxaan diradda aan ku saari doonaa isla markaana aan ku eegi doonaa wararkii ugu waaweynaa dunida kubadda cagta sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa ayaan diradda ku saari doonaa habeenkii xalay tole Barcelona oo wacdareysay isla markaana guul weyn gaartay waqti uu isagu soo bandhigay Hansi Flick dhibta weyn iyo waliba mashaakiladii haystay markaasi waliba Pep Guardiola oo u jawaabay oday Solskjaer isla markaana jawaab yaab la isagu siiyay markaasi sheekooyinkii ugu waaweynaa ayaa ka qeyba waan ku hayaa waxaa ugu muhiimsan kulamada maanta la ciyaari doona ilaa caawa nadiga kubadda cagta Arsenal iyo Manchester United is wajihi doona iyo waliba sheekooyin kale oo ku saabsan dunida kubadda cagta kuwa iyo kuwa kale ayaan diradda saari doonaa isla markaana ku dul istaagi doonaa haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saaro sii share garay saaxiibadiina la wadaaga meel kastoo aad joogtaan daawadayaal soo dhawaada aanu ku bilownin habeenkii xalay tole waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan Premier League kooxda Ipswich Town ayaa gooli waxba lagaga adkaaday Crystal Palace ay ku horkufeen kulan ka dhacay gurigooda Karim McKenna waa awoodi waayay kooxdan isagu inuu joojiyo Leicesterna 3 gool bay ku jiiday West Ham malaha viruskii Lopetegui ayaa haysta xitaa haddii uu kooxda ka dhamaaday weli waa daba socdaa viruskan markaas odaga Lopetegui viruskii meesha uu ku talaalay weli waa daba taagan yahay waayo isaga hadda kulan dhaxdaas ganax buu ku maqnaa hadda waxa leeyahay waa laga tuuri doonaa booska xal isaga jooga leey macalin ah laakiin kooxda meeshuu geeyay wax saalan ma hadda kula kaalinta 14aad bay ku jirtaa West Ham marka laga yaabo inuu badbaadiyo laakiin 14aad marka ku jirtid 6 dhibcood baa u dhaxaysa 18aad iyo 14aad marka Julian Lopetegui waa baxaya baa leeyahay marka isagu lafsadiisa laakiin marka waan arki doonaa طبعا habeenkii xalay tole waxa la ciyaaray kulamo ka tirsan Copa del Rey oo Granada oo kale Zaragoza bay jiiday oo markaas soo baxday Celta Vigo oo kale way gudubtay kulamo badan baa jiray laakiin kulamadii cajiibka ay jiray waxa kamid ahaa Milan oo 6 gool ku jiiday kooxda kubadda cagta Sassuolo habeenkaas wuxuu habeen cajiib ah markaan ay wacdareeyeen wiilasha Vonesca Samuel Chukwueze ayaa isagu gool furtay goolasha Rennes ayaa dhaliyay isaga soo noqday Chukwueze Abraham Baacawiye Leao baa hadana dhaliyay Galabri baa shaneeyay waxa markaa lixiye Abraham gool bay dhaliyay markaasi 6 gool bay markaasi ku adkaatay qoladii Copa Italia wareegiisa 16 markaas Sassuolo bay yeelayaan ka war Milan waa kacsan tahay war kuladii qoladii Bayern Munich xal waa la galay moogtahay waa laga reebay koobkii markaa Jarmalka wareega 16 lagu reebay yaa reebay taqaan Bayer Leverkusen Xavi Alonso waa soo dhigtay Xavi Alonso laf dhuun gashay kuwan wada uga baxday maqli jirta hebel ilu ka arkay maqli jirta kuwan ilu ka arkay macnaha waxba ma laga qaban karo dhigta socota marka Bayer Leverkusen ayaa gool waxba kaga adkaatay kooxda kubadda cagta Bavaria sida la tilmaamayo xidiga Tella ayaa dhaliyay Grimaldo ayaa caawi 69 daqiiqo waliba Manuel Neuer 17 daqiiqo casaan toos waa la siiyay hooba leeyahay daldalankaaga dhibkaagii baa batay baa leeyahay idinka ninka wadatiin ma hilmaantay macnaha ninka wadatiin ma hilmaanteen waa kan Harry Kane waa masiibo socota meesh loo uu tago waa dumay macnaha waa la duustaa maqli jirtay waa kan meel kale ka raadin waa kanaade waxa ku dhacay oo jeedaan marka kooxdana sidaas ayaa markaa la tilmaamaya dharbaaxadaas inay ku dhacday markaasi kooxda kubadda cagta Al Hilal As-Saudi ayaa habeenkii xalay tole Champions League qaradaasi iyagu ciyaaray 3 gool bay Qarafa Al-Qadar laga leeyahay iyagu markaasi ka dhisan iyagu kaga adkaaday Mitrovic oo goola oo markaasi goola Savic oo goola iyo waliba Minas Dosri baa caawi midna waxa caawi Sharawi midna Malcolm ayaa caawi xidiga Leonardana gool buu isagu dhaliyay sidaas baa lagu kala tagay Barcelona ayaa ciyaartay xalay tole markaana 5 gool ay ku xasuuqday kooxda kubadda cagta Mallorca waxa lagu leeyahay xidiga Ferran Torres ee la tilmaamaya 12 daqiiqo markii ahaydba gool isagu inuu dhaliyay kadibna Muriqi ayaa gool ka dhigay ciyaarta kadibna xidiga Rafinha ayaa 2 gool ka dhigay penalty isagu dhaliyay kadibna Rafinha ayaa raacsaday Frankie de Jong iyo Pau Victor ayaa kala dhaliyay marka Barcelona jadwalka kala horeynta hadda 5 dhibcood ay markaasi ka sareysaa
5 dhibcood laakiin caawa Madrid ay ciyaare waxay u baahan yihiin Madrid in la garaaco haddii kale labada kulan hadday soo badiso 30 iyo waxay imaanaysaa 9 dhibcood 2 dhibcood bay ku hogaaminayaan Real Madrid laakiin haddii la garaaco midna ay soo badiyaan isku dhibco bay imaanayaan yaa goolal badan iyo yaa sidaasi baa la fiirinaya dabcan Barcelona waxay noqotay kooxda kaliya ee Europe ee 10 gool iyo markaas mid kasta laba xidig oo kamid safkeeda 10 gool iyo ka badan iyagu ay dhaliyaan Rafinha wuxuu dhaliyay waad arkaysaa waa cadareynaya La Liga hadaan ku hadlaynana waa ka 12 gool buu isagu ka sii maraya kana 15 gool buu leeyahay marka labaduba waa ka iyagu sidaas u cadareynaya waliba 5 qalad baa kooxaha ka horjeeda iyagu ay galeen isla markaana ay ka faa'iideysteen marka waxa lagu leeyahay waa kooxda labaad Real Madrid baa ka horeysay kaliya oo sidaas sameeyay marka wax kale Lamine Yamal marka waxa su'aal laga weydiiyay Lamine Yamal alaab marka afraha fudud ku tuuro moogta marka waran baa leeyahay maxaa sameeyay maxay tahay alaabtaas marka banaanka aad ka taabatay wuxuu yiri baaska marka banaanka anigu faraha fudud aan ku taabtay waxaan taabtay buu yiri press L2 waa taqaana Soomaa press L2 waa si qiyaas L2 waxa waaye blaze BS ka marka ciyaarays taabanaysa dhag marka rabto qofka afka laabta ka dhalaysid marka waa cajiib xalatole nadiga kubadda cagta Barcelona marka guushaasi waliba anigu aad angalka ama angal dhaawac iga soo gaaray 100% baan ahay buu yiri diyaar baan u ahay kooxdeena caawiyo sidaas buu isagu uga hadlay markaasi marka waa arki doonaa waa wacdareena xalay Rafinha sidaas ayuu marka 16 gool ku dhaliyay 10 assist sameeyay 22 kulan waxaana lagu leeyahay goolkiisa 12 baa xalatole dhaliyay macnaha 2 gool maadaama uu dhaliyay odayga Hansi Flick wuxuu isagu weerar ku qaaday garsoorka isla markaana wuxuu sheegay guusha muhiim bay noo ahayd buu yiri laakiin aad baan ugu faraxsanahay waanu mudnay 3 dhibcood fursado baan helnay gool baan dhalinay buu yiri wuxuu sidoo kale sheegay markaas inay awoodaan gool inay dhaliyaan laakiin haddana mashaakil ay qabaan marka sidoo kale wuxuu isagu ka hadlay markaasi xaaladda guud ee kooxda iyo Premier League offside ka waran baa leeyahay wuxuu yiri garsoorkan waxyaabo badan baa jira markaas buu yiri marka ma garanayo buu yiri markaas iyadu maadaama offside ay taana goolka la ka dhaliyay waxa waajib buu yiri in sara loo qaado marka caalanka laakiin ma garanayo waxa dhacaya buu yiri mana jeclaysan markaas anigu ayagu waa lagu fahmaada qishki ay ku shaqeysan jireen waa lagu fahmay muxuu yiri mataqaana xale wuxuu yiri aniga aad baan ugu faraxsanahay muxuu yiri November waa soo dhamaatay buu yiri bisha November waa soo dhamaatay hadda bil cusub baan bilownay November ma jecel ninkan fan uma aha bisha len meeqa ku dhacday mataqaana habeen kasta qaca ku socotay adiga marka habeen kasta qac ma ka bixi kartaa Pep Guardiola ayaa la tilmaamaya isagu inuu yiri waxaan rajeynayaa anigu inaan la mid noqon odagii Mourinho ah igu habaarin Mourinho camal buu yiri aniga Mourinho soo jawaaba waxa daldalanka u dhaafi weedo tinta waxay kaaga buubta hadal le waa le hadda ka hor ma aragtay oday waxa soo hadlay Conte ma aragtay boodbooday maxay ugu gorbooday waa boodbooday aniga 4 gool u dhiyay waagii uu joogay Chelsea markaas ku kacday haddana Rafael Benitez bay isqabteen naagtiisa baa soo jawaabtay war wuxuu yiri hadda naagii wax daryeelayso calooshiisa feeri buu ninkan kana daryeel ka rabo buu yiri maxaan ii jawaabta marka ma joogsanayo kooxdu number 6 jamaahirta Liverpool iyo waxyaabo badan oo ka hadlay odaygu u jawaabay inuusan markaasi ma deganeen buu yiri marka deganaansho ahaan marka la eego wuxuu yiri anagu waa guuleysanay waan u guuleysanay marka laakiin shakhsiyaadka iyagu guuleystay waxay yihiin buu yiri marka kuwa faraxsan oo xaaladooda qurux badan markaasi laakiin waxaan rajeynayaa inaysan sida marka dhamaadkii Manchester United isaga ninkan marka in 3 koob uu kula guuleystay ninka adugeeda Mourinho koob kala duwan Chelsea la qaaday haddana waad aragtay aakhirkii Manchester United buu wadana qaab aan qurux badan kaga baxay marka aad buu kaga hadlay waxyaabo badan inuu ku guuleystay laakiin mar walba taariikhdu wixii la qabtay ma laga hadlay waxa taagan muhiim ba mugta
Manchester marka City ayaa ciyaari doonta caawa. Pep Guardiola wuxuu isagu sheegay Kevin De Bruyne isagu inuu 100% soo noqonayo awdiisa jiraaneed. Stones waxa uu diyaar noqon karaa kulankan inuu ciyaaro haddii uu ciyaari waayo isbuuca dambe baa laga yaabaa inuu marka 100% noqdo ciyaaro. Kovacic oo kale shaxda kuma jiro. Manchester City waa markii ugu horeysay ay ku fashilmayso 7 kulan dhammaan tartamadooda inta Pep Guardiola isagu maamulayo. Waana markii ugu horeysay uu guul dareysanayo 4 kulan oo xiriir horyaalka ah inta way marka macallin uu yahay marka horyaalka. 4 guul darro xiriir ilaa hadda markaasi waxa xilaareedkii hore dhanba guul darro horyaalka kuma dhicin baa leeyahay marka. Citizens waxay awoodaan markaas iyagu inay guuleystaan laakiin waxay noqonayaan 8 kulan oo aan guuleysanin markii ugu horeeyay markii labaad qarnigan 14 kulan oo xiriir ah oo November ilaa iyo markaasi 3 ilaa 2000 waa November 2003 ilaa Janaayo 2000 iyo markaasi 14 kulan ciyaareen. Kevin Keegan ayaa wada markaasi marka kooxdii ugu horeysay xaamilo la qaba ee horyaalka iyagoo hogaaminaya Champions 4 kulan guul darro dhabarka loo saariyo xiriira ma dhicin markaasi. Waan arki doonaa caawa marka hadii wax ka bedeli doonaan. Liverpool baa ciyaari doonta caawa iyaduna imtixaan adag baa u yaala Liverpool waxa lagu leeyahay Newcastle bay la ciyaari doonaan. xidigan Newcastle haddii uu Isaac ciyaari doono in kale oo leegi doona markaasi jug baa jirtay kulankii Crystal Palace ka soo gaartay marka waxa leeyahay Federico Chiesa tababarka ayuu ku soo muuqday inuu ciyaaraba ama daqiiqada la siiya suuragala soo kale Arne Slot waxa leeyahay wuxuu soo celin doonaa xidiga Alisson kaasoo laga yaabo marka xilaareedka dhamaadkiisa inuu bishan dhamaadkeeda inuu soo noqdo marka Conor Bradley Ibrahima Kanouté Diogo Jota Tsimikas way ka maqnaanayaan markaas. Liverpool waxa leeyahay 9 dhibcood oo nadiif ah iyagu ku hogaaminayaan horyaalka marka 13 kulan iyagu markay ciyaareen kadib waa kooxda kaliya marka rikoorkaas haysta. Hore waxa sidaas u sameysay Manchester United aakhirkeeda 12 dhibcood bay ku qaadeen 1993 Arne Slot 34 dhibcood ayuu isagu helayaa 13 kulan ee markaasi uu ciyaaray waayihiisa marka waan rikoor fiican. Gus Hindig ayuu isagu sidaas ku babariyay marka Arne Slot 18 kulan buu guuleystay asalka 20 kulan oo horyaalka marka imtixaanka waa loo hayaa. Chelsea waa ciyaari doonta caawa iyaduna isku waqti bay soo gali doonaa ciyaarahaas oo dhanba 12 habeenimo markaad fiirisid laakiin waxa jirta kulamo ka soo hormari doona oo marka waa ku tagi doona waqtiga laakiin Chelsea iyaduna waa ciyaari doonaan waxa leeyahay Fofana iyo markaasi kuwa kale ayaa ka maqnaan doona. xidiga Reece Jamesna isagu lama heli doono. Blues 5 dhibcood bay gaareen 6 kulan markaasi xilaareedka hore markaad fiirisid marka laga hadlayo hadda markaad fiirisid waqti xaadirkan waxay u baahan yihiin iyagu inay sii socdaan rikoorkooda marka waxaana markaasi isku day doonaan inay guuleystaan kulan kale. nadiga kubadda cagta markaasi Manchester United iyo waliba marka 12 iyo qadar markaasi rubuc ay ciyaaraha soo gali doonaan gaar ahaan kulanka Manchester United Emirates ayuu ka dhici doonaa. Arsenal Gabriel iyo Michael Moreno iyo Thomas Partey ay qiimeyn doonaan iyo Ricardo Calabori kuwaas oo laga yaabo inay ciyaaraan. Manchester United marka la eego Bruno Fernandes ayaa isagu ciyaari kara kadib markii uu isagu baxay kulankii hore Afriyeber markii ahayd ciyaarta laga saaray. Lisandro Martinez iyo Kobe Mainoo ayaa min 5 jaalayaal qaatay ma ciyaari doonaan kulankan. Rabaxa ku dhacday cidde Liniur ayaa suuragal isagu markii ugu horeysay inuu ciyaaro sidoo kale waxa leeyahay nadiga kubadda cagta Arsenal ciyaartan tii 500 ay u noqonaysaa garoonka Emirates ay ku ciyaaraan dhammaan tartamadooda waxay awoodaan 3 kulan oo xiriir inay guuleystaan markii ugu horeysay xiliyaareedkan waliba xitaa ogsoonow wax guul darro ma soo gaarin 15 kulan marka la eego kooxaha iyagu Big Six-ka marka la eego tan guul darradoodii 4 halka ayd Manchester City April sanadkii tagay markaasi waliba Gunners ay lagu leeyahay state ay dhaliyeen asal 12 kulan ee ugu dambeeyay markaasi markaad fiirisid qaybta hore inta la gaarinba marka waliba Arteta waxa leeyahay isagu wuxuu guuleystay 6 kamid ah 7 kulan ee Manchester United isagu u wajahay waana guushii ugu horeysay 2020 buu ka gaaray marka waan arki doonaa. Manchester United waxay awoodaan 2 kulan oo xiriir markii ugu horeysay xiliyaareedka inay guuleystaan ma dhicin markaasi waa sababta marka lagu baqayo Arsenal ay dhulka ugu jiidi karto marka marka waan arki doonaa. wali waxa lagu leeyahay nadiga kubadda cagta markaasi Man United waxay guuleysteen 6 kamid ah 7 kulan ee isbuuca kala barkiisa ciyaareen iyagoo waqtidan oo kale lama celiyay waa sabab loo leeyahay marka Manchester United caawa looma celin doono dharbaaxa bay ku dhufan kartaa Arsenal marka ciyaaraha goormay soo gali doonaan ciyaarahaas yaa jiri doona Real Madrid baa jiri doonta
Everton iyo waliba markaasi Wolves 10 qadar 30 daqiiqo soo gali doona isla waqtigaasi Man City iyo Nottingham Forest Newcastle iyo Liverpool iyo Chelsea iyo Southampton ay soo gali doonaan 12 qadar 15 daqiiqo waqtiga habeenimo ama 5 saac iyo rubi waqtiga loo yaqaano ayaa Arsenal iyo Manchester United ciyaarta ka dhici doonto garoonka Emirates 12 habeenimo waxaa jirta sidoo kale kooxda kubadda cagta Athletic Bilbao iyo waliba kooxda kubadda cagta Real Madrid hamogaan iyaguna markaas guud ahaan barnaamijkeena waa naga intaa salaam